marka ugu dambaysa ayuu ku fiican yahay in ereyga afku sira la macneeyo marka gabayga la tegiyo kabacdi. haddaan idhaahdo intii aan anigu kolleyba gabay tirinayay mar walba waan sheegaaye intii aan gabay tirinayay waa gabaygii iigu dhib badnaa ee iigu hawl badnaa. inta iga soo martay aan marka jeexjeexay dib u qoray dib u hagaajiyay isku dubariday haddana xagga ka eeg halkan inuu bilo igu qaatay gabaygaasi inuu bilo igu qaatay. waana gabay intaan gabay tiriyay gabayga ugu adag weeya. dadkana waxaa u caada ah markuu mid ka gudbo ama wax kartaba inuu yidhaahdo bal waxaad garan weydid oo aad isku qiyaasid oo isku dheeririsid raadiyo baadido. iyadu 6dii bisha la yidhaahdo April 1997 ayay soo baxday. waa gabayadii dalka Ingiriiska intaa joogay aan tiriyey. ujeedada ay ku saabsan tahay waata waxayna kaga xidhan yihiin ee aqoona, waa ta waxayna kaga xidhan yihiin iyo bani aadamka iyo kaalinta uu nolosha ku leeyahay. waa ta waxayna kaga xidhan yihiin inaynu garanno oo ah ujeedadaynu u abuurannahay. waa ta waxayna kaga xidhan yihiin ee ah innaga iyo nolosha maxaa isku kala xidhan, maxaynu isu nahay, waa maxay xiriirka inaga dhexeeya, adduunku muxuu jiraa, maxaa loo dhisay. waata waxayna kaga xidhan yihiin marka halahaasaan sheegay ayaa kolleyba ku xidhan. gabaygan markaa ujeedooyinka waaweyn uu ka hadlaya waxaa ka mid ah waayaha ina haysta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka jira iyo sababaha. arrimaha uu ka hadlaya waxaa ka mid ah bani aadamku inuu karaamaysan yahay. haddii aanu karaamada luginna awoodda iyo waxyaabaha uu kari karo iyo waxa uu u qumi kare u qalbi kare ee uu ka jiba keeni karo ama ka liib keeni karaa inay wax aada u ballaaran yihiin. inuu buuro dhan baniaadamku hadduu is karto isagu waanu isilaawin inta uu xaqa ku taagan yahay ee karaamaysan yahay inay wax badan u furan yihiin oo si walba waxyaabo badan inta ilaahay khalqi abuuray buu ugu fursad weyn yahay, ugu mudan yahay. mudnaantaasi ciyaar maaha. ilaahay wuxuu ugu talagalay inay mucjisaad iyo wax adag iyo waxyaabo ilaahay ka dhigo qofku u malayn karo inayna suuragal ahayn inay qofka u suuroobaan. tusaalaha ugu fiican waxa weeyaan qofku markuu xaqa ku taagan yahay waxyaabaha u suuragale ee xagga rabbi uga suuragale wax walba siday ugu fudud yihiin. tusaale waxaa inoogu filan nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh muddo xadidan oo kooban oo yar maka ka tegey, baytul maqdis ka tegey, sikrat almuntaha oo 7 samo ta u sarreysa ama meel kasii shishaysa inuu mutayaro kooban isagoo diyaarad iyo waxdaana wuxuu adeegsaday aana jirin inuu tegey. waxaa u suura gashaa bani aadamka sidii ciise inuu dhoobo shimbir ka sameeyo oo fuufo oo duusho ayad ilaahay ka dhigo maalinka maanta ay shimbir noqoto duusho. inuu qof dhintay soo toosiyo qof dhigale indhaga u baxaan qof indhala ugu baxaan biqadrillaahi tacaala. ilaahay sida uu iyagu dee ambiyaabay ahaayeen, laakiin waxaan ka hadlayaa marka nahay mujtamaca dhashii nebi aadan waxyaabaha maaragtay waxaasoo dhammi qofku haddii waxay u baahan tahay
inaad qirsantahay inuu ilaahay jiro isagana aad ku tiirsantahay la-aantii inaad waxba kugu suroobeyn si ay wax kugu suroobaan markaad ku haddii ilaahay ka dhigo qaadato halka aad ku talagalkaada noqon inaad addoon tahay wax ku ah ilaahay iyo karaameyntiisa dee markaa karaamada aada lumisanaa dee waabad sugtoo maanta ka soo qaad waxalla bani aadamku iyo qofku waxalla wuxuu galo iyo wuxuu gooyo iyo wuxuu yahay dee waa qofkaa ka gaadhay telefishon isagoo daawanaya intuu bahalkan remoodka la yidhaahday lagu badbadiyo oo soo qaato isagoo hor fadhiya nuucaawo dhan bidhaa ku hayo ay ku adkaato inuu istaago oo marbaad ilaahay ka dhigo gacantaba ku bedelo kursiga uu ku fadhiyo iyo bahalku daawanaya wax yar bay isu jiraan dabeedna inuu halkaas oo dhaafay inuu ka dhaafi kari waayo oo yidhaahdo maaragtay la yidhaahdo adigu dee ma kici karaysid waxba hayslorine bahalkanu halkaasay layna marinayaa halkaasaa cadowgeenu ina marinaya waxaynu kari karaynaa ma jirto aanu guri iyo wax cunis iyo wax cabidahayn aanu kari karaynaa ma jiro haddii aynu garanana kuwaasun baynu la mid noqon lahayn aynu ka sheekaynayno dowladhan baynu dhaqaajin lahayn badadhan baynu badaynu sacab ku dhuri karnaa badda ayaynu sacab iyo wee ku dhuri karnaa marka aynu karaamaysannahay arrintaa murugada le qofkaa is-ilaawey ee maanta xoolaha ka hoos maray iyo halka ilaahay ugu talagalay siday u kala fog yihiin baa gabigu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa labada qodobe kale asaasiga uu ka hadlayaa waxa weeyaan qofku adduunkanaynu joogno waa layna kula noolyahay khalqi fara badan aan insi iyo jinsi waxaan leeyahay jin iyo insi khalqi aan ahayn ayaa adduunka ina kula nool oo haddii laysaado magacaaba oo tiri aynu wax yar ka garanayno intaynu aragnay naqaano magacyaynu u leenahay laakiin ma naqaano mid waliba wuxuu galo iyo wuxuu gudo iyo kaalinta uu nolosha ku leeyahay iyo inaga xiriirka inaga dhexeeya inaga iyo makhluuqa kale adduunka ina kula nool xiriirka inaga dhexeeya waxa uu inoogu fadhiyo inaga siduu inoo buuxiyo sidaynu howlaheena ugu adeegsano sida haddii ilaahay ka dhigo nolosha kaalin ugu leeyahay waxaasoo dhan garan mayno quraanjadaasi waxa ugu yaraynu naqaano waxa ugu yaryar ee aynu naqaano quraanjada ka mid ah quraanjadaa garan mayno meel walba maraysa ee meel walba joogta waxalla waxay tahay ama ujeeddada ay ahay oo abuuray ama ay adduunka u joogto ama xiriirka inaga dhexeeya ama iskaashiga ay ahayd inaynu samayno inagii quraanjadu baniaadamku garan maayo oo waxa laynoogu talagalay nolosha inaynu u adeegsano si aynu waajibkaynu uga soo baxno quraanjada iyo inta ka yaryar iyo inta ka waaweyn waxaan oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu talagalay si aynu waajibkeena uga soo baxno inaynu u adeegsano sida noloshaba gebigood waxaa loo dhisay inaynu waajibka ka soo baxno si aynu waajibka uga soo baxno inaynu adeegsano nolosha si aynu birtaba u adeegsanayno ee ooda uga dhiganayno si aynu xoolaa u adeegsanayno ee aynu waajibka gudashada ugu adeegsanayno cadkooda iyo caanahooda iyo haragooda iyo inta kale ee ay ka mid tahay intaasubay kuwa kalena la mid yihiin xilbu hayaa jinacu xilbu hayaa quraanjadu aynaan malayn karin nidaam bay leeyihiin xeerar bay leeyihiin xagaanay dhaafin bay leeyihiin sharci ay ku dhaqmaan bay leeyihiin si ay hawsha u wada qabtaan bay leeyihiin si ay hogaamin bay leeyihiin iyo hagid ayay leeyihiin maamul bay leeyihiin hadda dadbaa madaar soo qaata oo shinida iyo waxaa yidhaahdeen khalqiga adduunka jooga wax iska jooga oo bilaad micno u joogo aan sabab u joogin oo camal u joogin ma jirto mararka qaarkood guubaabaabu ka helaa hadduu daawado jinac duulaanka iyo quraanjada oo fayshan ama haddii ilaahay ka dhigo habaysan oo geediya ama hawl qaybsi u socota qofku mararka qaarkood waaba yaabaa dad marka haddii loo sii fiirsado wuxuu yidhahdaa waxbaaba wuxuu ka kasbaa ama wuxuu ka kororsadaa aqoonbu ka kororsadaa dugaagu waa lamid ugaadhu waa lamid
xooluhu waa la mid, dhirtu waa la mid. inta aynu naqaana magacyadooda naqaanay aynaan wax badan oo aynaan ka ogeyn ina kula nool adduunka waxaynu ka naqaanaa way yar yihiin, laakiin waxa uun muhiima haddii aynu si fiican wax walba u garanayno kaalintiisa inaynu yaabi lahayn, dabeedna wax walba sidaynu aragno waynu uga hanweynaan lahayn, waynu ka jeclaan lahayn, waynu ka sheekayn kari lahayn ilaa quraanjada ilaa iyada mid walba xilkiisa, maamulkiisa, kaalintiisa, xiriirka inaga dhexeeya waxaan oo dhan baa macna inoo samayn lahaayoo dabeedna waynu dhaqaalayn lahaynoo waa dhowri lahaynoo waa jeclaan lahaynoo waa dabageli lahaynoo noloshaynu u kaashan lahaynoo waxaa fududaan lahayd gudashada waajibkeena ayay inta khalqi jirtaa inay kala qayb geli lahayd, dabeedna waxaa inoo fududaan lahaa in waajibka gudan. sidaasaa jirto oo iskaga tumanaynaayo waa tooganaynaayo waa dilaynaayo waa jiilaynaayo waa ku ciyaaraynaayo macne allaale macne ay inaga xaggayna inoogu fadhidaa taataaba quraanjada ka bar qofka uu kula yaabaya hawaaye haddii lagu tuntiyo isagu wuxuu arkay haddii kaleeta inay isku mid tagaan waxba ahayn ilaahay waxaan ujeeda lahayn oo macno lahayn ma abuuro xashaa lilah. adduunyadu cabad maaha, ciyaar maaha, khalaqu dalaq ilaahay intuu wax iska abuuro aanu jeeda aanu kala hayn oo nolosha kaalin kula hayn ilaahay ma jirto. sida aayaduhu baynoo sheegayaan maa min makhluuqin ma jiro ilaahay makhluuq u abuuray in ilaahay caabudin oo ilaahay u tukan oo tasbiixsan ma jiro. mar haddii taasi ay run tahay oo aayadahaasi ay dee la wada garan inay aayado qur-aan yihiin dee ilaahay cid caabudo ma aqoon laha. ilaahay cid caabudoo taqaanaa dee aqooni kama maqno. yaa aqoonta ugu sarraysa ee baniaadamku kashiisa gashaa waa abuun ilaahay inaad caabudo. ilaahay dee iska caabud mahdo inaad aqoon ku caabudaysa, garasho ku caabudaysa, xaqa uu leeyahay iyo ilaahnimada uu mudan yaad ku caabudaysa. taasina waa aqoon fog oo aan la malayn karin oo xeel dheer. kasoo tag intaasi waa intaynu naqaano ee aynaan aqoon shishe u lahayn. xiriirka ugu weyn inta makhluuqa dhulka inala joogto xiriirka inaga dhexeeya wuu kooban yahay. waxaa laga yaabaa in waraabaha iyo xiriirka ugu weyn intaan halku ku leeya malayno in waraabahaynu la leenahay, dawacadaynu la leenahay, dacwadaynu la leenahay. libaaxu isagu xiriirka waa ka yaryahay ka waraabaha. haddii ilaahay ka dhigo ugaadha qaarkeed, haada qaarkeed oo qaarna aynoo macneeyaan halka inoo buuxiyaa tahay ama arrimaha haddii ilaahay ay saadaal wanaagsan ama saadaal xun. kuwan kalena xiriirka waxaynu ula yeelanay waraabaha iyo libaaxa iyo dacwada iyo inta la midkaan xiriirka waa inaga dhexeeya. waa maxay? waa xoolaha inagiyo iyaga inaga dhexeeya iyo iska difaacooda iyo iska ilaalintooda barashada arrimaha. laakiin mar walba ma hunda ogaano oo ma garanayno dhaqankiisa iyo falaadkiisa iyo wuxuu adduunka u joogay, sirta ku jirta iyo xeesha ku jirta iyo cilmiyada ilaahay ku qarsoon. waa inoo fududaan lahayd inaynu garanno haddii aynaan haddaynu inagu saxnahay hadaynu waddada ku taagan waxaan oo dhan baynu dabeetana nolosha weligeedba kamaynu xiisa goynin. intaynu kula nool naqaano inay tahay tolkeen tahay, tolkeen dhirtu ay ka mid tahay oo quraanjadu ka mid tahay oo cayayaanka yaryar ka mid yahay oo kuwa waaweyn ka mid yihiin oo ugaadhu ka mid tahay oo dugaagu ka mid yahay. idan waxaasoo bahdeena yihiin oo tolkeen yihiin oo innaga haddii ilaahay ka dhigo inaynu adeegsano loo abuuray dee macno weyn bay markaasaynu wax walba jeclaan lahayn oo camalka laftiisa si fiican u gudan lahayn. mararka qaarkood waxaabaan maqlay sheeko ninbaa nacaan oo odayaashii hore soomaalida ka mid ahaaba reer dulmi waa nin la yaqaano markiiba gogol baa loo geeyaantaaba dugsi baa loo dhigayo waa nin magac kuleba u ahaa deegaankaas markaa adeenka reerka u martida yahay dabeedna wuu maqnaa ninka reerka lihii wax yar kabacdi markii gogosha loo dhigayo xoolihii la xireeyey buu ninkii yimi. dabeedna waxaa la yidhi hebel baa joogo markiiba dhinaciisa uu soo dhaqaaqay halkiibuu asalaamu calaykum wacalaykum asalaam hebel baa uu fadhiistayoo hadiyo koortee ninka inta wax loogu maqan yahay waa iska waxaa jirta in loo sheekeeyo labada daaliyo isagoo salka dhulka dhigayoo ay ninkiis waraysanayaan baa waraabicii ninkii sheekadiibuu gooyo wuu aamusay. wadaadkii martida ahaa
wuu arkay isbedelka ku dhacay ninka waraabaha ciyayaa muu sii danayno dee waxaa weeyaan ilaahay waraabow maxaan uu kaa maqlay ayaa meesha taalla ninkii cabaad buu aamusay wuu kacay iyadoo ninkii matidaha sheekadii u hayo ayuu kacay cabaad buu ka maqna wuu ku soo noqday ninkii baa xiiseeyey daawaamo isiri taloma waxbaa dhacay cusub aanad ka warhayno markuu soo noqday baa ninkii reerka lahaa markuu soo noqday baa ninkii matidaha ku yidhi xageedaad awel u kacday wuxuu yidhi intii aynu sheekada haynay waraabe ciyeynu maqlaysi haa buu yidhi inaan aamusay ma arkaysi haa buu yidhi waraabahaasi wuxuu yidhi cidiisu yani soomaalidii waktigaas waxay gaadhay inay waraabaha waata layaa qofku waa waraaba dadka qaar baa la yidhahdaa waa waraaba la hadal weligii ma aragtay cidla waa dawaca la hadal ama waa libax la hadal ama waa waxan laakiin waxa la waa waraaba la hadal macnaheedu waxa weeye waxaa la aaminsan waraabuhu cid wax walba way hadlaane uun luqadooda inaan haddii ilaahay ka dhigo aynaan ka warhayne wax walba dee way hadlaan luqad ilaahay ka dhigo oo waxbay luqada isku afkartaan oo cidda ilaahay u baneeyey ee karaamaysan ku afkarato ayaa jirta dabeedna waraabihii wuxuu yidhi ilaahayow mul baanahay ninkii martida ahaa buu sheekaynaya ilaahayow mul baanahay 3 habeen baan qatana ilaahu caawahay qadininba cii waraabuhu sida bay noqotay wuxuu waalidii kacay markaan dhageystay waraabihii waxaa la tiriyaa inta goor uu ciyo waraabuhu ayaa la tiriyaa tay 3 tahay tay 4 tahay tay 5 tahay tay 6 tahay tay 7 tahay mar walba tirada goor uu ciyaa way ka duwan tahay ujeedadeeda iyo macnaheedu tirada kale sidaas ay loo tirin jiray maruu quraad sheegayo maruu saxal sheegayo maruu hoob sheegayo maruu sira kale sheegayo xataa maruu baadi sheegayo baadi la waayo dib jirtay ama maqay marka wuxuu dadkii waan kacay xeradan galay oo orkii baan kaxeeyay meeshii baan la qabtay oo geedku ka ciiyay baan geed ku xidhay waxaan waa taa caawatay cashada waa ka ilaahay ka dhigo caawa hilbaha cumbu anigu ka soo dhaaqay buu yimid oo tashaday wiilkii tan ma ninkan waa la yaqaanaa ni sheekh abu hanika martida ah ee ka sheekeeyay arrinta sida cawsha iyo mascagalida iyo arrimahan ay noogu fadhiyaan waqtiga xilliyada roobka iyo sida laga eegto aqoontoodii cilmigooda laga eegto laga garto fafaalaha roobka ayuunbaa mid waliba uu u leeyahay wax laga eegto oo fududayn lahaa inaga nolosheena iyo kaalinteena iyo waajibkeena iyadana iga jeclaysiin lahaa oo markaa xiriirkeenu kasii wanaagsanaan lahaa oo aynu markaa isku hadlayn fara badan qabi lahayn waayo dee qurashadaas hadaad garanayso inay noloshaada iyo hawshaada iyo xilkaaga kaa kaalmaynayso dee waa ciidan kuu soo kordhayo kuu joogo aad ilaashan lahayd ood isku hadlayn lahayd marka aad waajib leedahay laakiin dee taasi waa marka aad sidaan sheega karaamaysan tahay ee aad wadada ku taagan tahay ee addoon ilaahay tahay ee xaqa ku sugan tahay ayaa albaabkaasi kuu furaya ta kale qodobka u dambeeya ee isaguna muhiimka ah aan doonayo intaanan gabayga u gelin inaan isagana dadka xusuusiyo waxa weeye inta aynu naqaano ee makhluuqa ee aynu naqaano in ka badan oo aynaan aragba oo aynaan aqoon ayaa ina kula nool adduunka aynaan aqoon ayaa adduunka jooga dowladu aynaan aqoon ayaa adduunka ka dhisan oo ku dhaqan oo jooga khalqiyo fara badan oo intaynu aragnay ishaynu qabato aan ahayn ishaynuba qaban oo xataa jinka ka baxsan baa laga yaabaa inay adduunka joogaan sidaa darteed baad meel kastoo aad marayso waxaad ku talagelaysaa haddaanad adigu arkayna in ay jirto cid kuula nool adduunka oo ku arkaysa waanad aqoon waanad filaynba sidaase waxaa inoogu waajibtay qofku mar walba xataa hadduu aqalka gudihiisa maqsinkiisa hurdada xataa markuu galo mar walba inuu ixtiraamka jiro xishoodka jiro mar hadduu yaa kii mudnaa kii karaamaystaa ilaahay karaameeye inta uu abuuray uga dhigay mudanaha uga dhigay qofku inuu karaamada iska qaado oo inta kale makhluuqee la yidhi kaasaa idin sayida oo tusaale wanaagsan siiyo
waana iyagu la yaabin markuu soconayo iyo markuu hurdo iyo markuu fadhiyo iyo markuu hadlayaba ayaa qurux badan. aqalkaaga marka gudihiisa ku jirto xataa anshax baa lagaaga baahan yahay, maqas suuban ayaa lagaaga baahan yahay. ma ogid cid kula joogta kama waraysa. waxaa laynoo sheegay dee qaar ahal khayr iyo ahal shar labaduba qofka way la xiriiraan. markaa qofkay ku xiran tahay hadba cidda qolka la joogta inay ahal sharka tahay iyo inay ahal khayrka tahay. waa maqsinkaagii baanad xorriyad buuxdo inaad intaad soo gasho marya halkaa ku daadiso oo haddii ahayd waxaad doonto samayso. taasi way ka baxsan tahay. ma aha shuruud ka mida shuruudihii laynagu karaameeyey ee ilaahay inagu siiyey mudnaanta. haddaad meel cidla iska marayso macnaheedu ma aha haddii aanad cali arkayn ama dad arkayn, haddii aanad dad arkayn macnaheedu ma aha cidi ku arki mayso. macnaheedu maaha hataa hadday xoolo joogaan xoolahaasi waxba garan maayaan. macnaheedu maaha waxaad ka soco haysataa inaad waxaad doontid samaysatid. tallaabadii aad qaaday meesha joogtaba cid baa joogta. waata dadka laga raaco garasho la-aantaas ahad iyo goor ahal sharku ay fursad ay noqotaa inay waxayna ku yeelaan. taasaa ahal khayrku ina kaga durkaan oo ina kaga xijaabtaan. marka inagu war isuma hayno. koow, inta aynu naqaanay makhluuqa war uma hayno. waa laba, inta aynaan aqoonay adduunka korkiisa inala joogta aynaan ka warhaynaa iyadoo jirta. halahaas iyo hala lamida mar haddaan baydbayd loo macnayn karayn kabayga oo u dheeryahay oo ilaa 600 oo dhow uu bayd u yahay. dee goboldhigaa kolleyba ugu faahfaahsane waxaa loo sameeyey in qofka lagu soo dhiirigeliyo inuu guda galo oo yidhahdo bal waxay ka hadlayso ilaa waxaanaan ka hadlayo ayay kabay ku saabsan yahay. marka intaas oo dhan waxaa goboldhig looga dhigay bal hadda inaad kalgacal kuu galo inaad ahamiyad siiso bal inaad sida wada iskuulka iyo bilcaamadaha dee casharka looga soo qaatay loo soo bartay loo soo xafiday loo soo faaqido ayuu kale yahay. mar haddii aan anigu madaadaalo ugu talagelin. bismillaahi oohow runtu aydin maahee bal adeentideedii oohow ka oohow. dhulku waa ammaanay abbaanduulihiisow adhi raacistiisii ma orgaad ka tahay weli asraarka maantii ka ilmigul habeenkii. bogashada iddiisiyo wax ka maqan asaagii ninku helay ilduufkow indhagarashadeediyo ilowgeeda badan baa gelin qura intaadiyo kugu baray erigee haddaad aamin doon tahay eedahaaga biira aqalba ha laga galo arrin lagugu leeyahay. marba waxay aslaysaa asal lagu xumeeya aslideeda mooye arbacaa ka wariso waxay tidhi isniintii ku idlaatay xagashadu ilbaxnimadu waayaa. maanta iibsadeediyo axaddeedu badana weli waa ayaantii lagu cunay ayaankee imisaa ka hadhay tolow beritii ama haddii lagu qoray albaabada. ilaa maantii gubaysigu yimi iyo ilaa maantii 60 iyo gubannimada maalin walba ballanbeeda iyo berideelka matalan rogad maladaas yaa soo rogaya iyo tanaan keenaya ayuunbaa dadka sid u ahaa iyo inay tirsadaan maalmaha yaa dheer. marka sidan u cabirtay gabaygu sidan u cabiray ballankaa beenta ah sida albaabada dukaamada loogu qoro اليوم كل بكرة نقد ناك عربتا وبدن حقا لما تجربوا كان كل وحلو الباب القرآن ما أنت يبسو بريتنا أماه ثم أول بوا مات أردت استدمنا ما كريسها الشركات صاحة قاعدة كريسها ما أول بوا مات بريتها بدك تقول عيار بس لما تيبسو بريتنا أماه تو ما بريتنا بيشفت مركها أردت ما يسوى ماتتي ما يبسو حتى ما تحكي أردت ما كتبت ما يبسو فعاودت ما تو مانتا واتلوكت مركزها سوريا أربعة كوريسة واحد الإسرائيلي كل إدلاتي حاجة شد البحرينات وياه ما أنت يبسدت يو حتى تبادنا وروا عيانتي لقول على عيانك خك عايز لقول على لقد حلو ريتي وروا عيانتي لقول على عيانك إني ساك هاري ترو بريتي عمهدي لقول على الباب ده
afawaaninkeediiyo arbe dheeli tiri kara aarna waa dhigiisiyo oori laysku dheerarsado aragtida midaysiyo dadna ururku qaangaadhi wadartaa wax lagu yahay iskaashigaa wax lagu yahay hadday nin niyatiisa noqoto waa barkumataal wacashada ibliiska indhabeelka sidatee dhulka obolos baa shiray waxa lagu agaasimay asaroorintiisu ereyada taxgelintiiyo umadaynta ficilkiiyo inagaa ka marato calabada kaltuunkiiyo magacyada ukuridiiyo hadba inan qoraystiyo anigaa ku badatay say u dhan tahay waa aniga inagii tii inaga ummadda wixii ereyadii macnaa samayn jiray haddii ilaahay ka dhigo maaragtay ilaahay ugu talagalay sidii ilaahay ugu talagalay wax ku bay jiray ayaan waxaa bedeladeen waa anigaa ku badato asma lagu xabaaliyo warwar bay ku aaseen dhalaboodi weeye inta tabama weyday adhaxday ka jiiftaa adinkay ka tahay maya ilinkaa kalkaga jabay cabsi bay ku oodeen waa adduunyateedii ifafaalayaashii aamanuun ka soo yiil waa ililaheedii agankiiyo lurkeedii waa aroosanteedii indhalfurashadeedii marna ay rajookhiyo ula dhabanta soofkiyo ambaqaadka jaanta ka shalulan ilayso tabashada obsiiso ha ekaatadeeda afyaqaanku seesaa marna waxay ku ururtaa agagaarka calalkiyo raqda eegideeda iyo ubbadeeda dacarta ah aja weerarkeeda arabida umbacata marka lagu akeekino marka lagu ormeeyo falan lagu afduubee marba eel ku gororee hirashadu asqowdee ulashadu hungowdee asalkeedu guuree ambisadu xirxiratee babisadu ku orisee is ahaanta kelimo dadku wada ishaartee odaygeedu waashee ina belo ka taliyee lagu amaraquuqee la ilaahya sheegtaa la awooda beenshaa marka laga dul ooyey asaydeedu badatee alwadkiiyo khayaa'idiyo kolba ku firidhaa axdigeeda nabadeed lagu aamusiiyaa bixisada ku oloshiyo agaraa danteeda ifisadu ka beridaa waa amuuraheedii ardal loo qabqaban jiray waa astaamaheedii marka laga inaabsado shimbirkeedu iman jiray waa awaalaheedii allaheedu furan jiray xaaladdii baynu taagannahay maanta aynu ku sugannahay iyadoon been ahayn marka doobigu buuxsamo ama in ummadda dhulka lala gooyo ama in ilaahay u naxariisto oo ugu naxariisto inay waddada ay waxayaan dib uga soo noqdaan marka maanta waxaynu taagannahay waa maalintaas haddii ilaahay ka dhigo saabaal wanaagsan baynu iska qaadanaynaayo laleeyahay waa astaamaheedii marka laga inaabsado laga quusto shimbirkeedu iman jiray waa awaalaheedii allaheedu furan jiray runta lagu asturi jiray ilahay naxariistiisu iman jirtay ama cadhadiisu iman jirtay dhulka lala goyn jiray ama ilahay naxariistiisu iman jirtay waa arooryadeedii aloos ku dhalan jiray waa islaaminteedii marka aadun laga dhigo mar hadday bahalowdo in dib loo islaamiyo ilahay raxmadiisa laga bartay waa abaabulkeedii askarteeda lagu yidhi xadhka harag abeesiyo urta bahalka hoosiyo aburbeena lagu diday u shaba'an ku siidaa waa u shilay muuse waa amuuraheedii imtixaanku saaraa waa abraaraheedii lagu kala astaysnaa waa ardaadhigeedii ninka aaba xidhatii xasan guure odhan jiray mar hadday ororo tahay raganimo abkeeda lagu iilbanaystaa xil adduunye waa qool labadeeda aadkaa waxaa laysku aadshaa marka labada aadkaa midka dhinac ku aad yahay laba dhinac ku aadaan orob lagu bariistiyo marka ee xadirashada lagu gabo arbeebiga afku siran cad loo rogo ereyguna ku madi yahay allaylahelin baa yidhi arartaa gu noqoto kuma aada hawshay dadku odhan lahaayeen alla mahadi weeyaan dadka oof dalooshiya amin baa sugayso waa ayaama jiratee orka gabay mi sugayow irbad baa wax xumisee wax ku soo dar aamiin intuu dhegaystaaba culays laga dulqaadaya markaasuu jibicsanaya markaasuu allayha wuu yidhi markaasuu nefisaya markaasuu isdhiganaya markaasuu xilkii iyo kaalintii iyo waajibkii gabayga u dirayey kanaabaa dee ka keenaya haddii ilaahay ka dhigo maaragtay
kanaabadii ilaahay ka dhigo inuu isdhigto kaasuu dabeetana taasuu ku seexanaya oo gabaygaas la tirinayo haystaa gabaygu ficil maaho waxba qaban maaye waa iftiin loo adeegsado ficilka noloshii horena wuxuu wax ku ahaa marka uu qof gabiyo dadkaa ficil u rogi jirayo wax ka dhigi jiray laakiin isagu waa hadalo wuxuu beriyaha waxa baad tidho markaad wax maqashiiso isagu wuxuu sooranayaa isaga qofkan wax tirinayaa kuugu qaybsan nolosha kuugu qaybsano isaga xilba ma saaro markaas uu oranaya alla ilaahu uu yiri dabeetana halkaas uu iska qayilaya waa mistareexo markaas uu oranaya deewa kaasoo markaas uu gabayga ku qayilaya oranaya de waajibkii wixii aad sugaysay iyo wixii maqnaa iyo xilkii yaali waa ka markaas saas uu gabaygu leeyahay irbada wuxuu misee marka gabayni sugayo wax ku soo daraamin andaqaadka hubantidu qofba wuxuu ishaartiyo idan lagu cawaystiyo ha ahaata maaho ficil baa ansixiye iminkaba garaadow arrimaha dad lagu yahay ha ku xadin allow sahl adigoo u baahan waxaad kari karaysaa maanta dhacaa wadan duco iyo baryo iyo calaacal iyo waxaad daldalaysaa waxa u daldalaysaana waa waraadiro adiguba aad qaban karto arrimaha dad lagu yahay ku xadil allow sahl ficil iyo waajib lagu abuuray allow sahl ku raadin suuroobaysi ilaa intuu ku fadhiisiyo qoran lahaa halka afka kugu guri lahaa waxa uu yiri irsiqaaga iyo muraadadaada u doonay awood aad ku dooran lahayd iyo halkaad ka dooran lahayd oo jira naftu iska oyda marka aamuskeedii inta loogu iibsho waxay eersi badataa markay iima badato fadhiga aradiyo baryada awaadee haddaan aana loo hayn anafada masayrkaa cidi kuma irdhayso kol hadday asturantaa cidi kama adkaatee halka aayaheediiyo aweydeedu yaalliin alamtara fogaatiyo abataqana kaga dhigin ma kari karaysa oo mid ataa qaban karaysa oo mid halkaa tigi karaysa oo mid waxaa naftaha ugu sheekay way kartaayoo haddii ilaahay ka dhigo ninkii ka sheekayna waxay kartee hadduleynu ha nacasayne oo bahda ka diline oo ha maqashiin ereyada nacasnimada ah kama istirada gubtoodii agabaynta liileed unkidii farsamidii iyo abyantii talaysnayd alabada farshaxanimo halka ay ku ururtiyo wax abuur ku talax taga axadkeeda mudanka ah ma abaadadiisii waa adduunkii ilaahay intuu dhisay uu camiray ma abaadadiisii galladii adduunkiiyo wax ku ooladeedii bilicdiiyo asgogolkii mahadiyo ugbaadkii dhulka lagu ilaa xidhay noloshiiyo ilayskii indhakorisadeedii allanimadu saarayd markay camiran tahay ee buuxda ee dhinaca jalleecdaba ay dhaayaha iyo indhaha geestaad eegtaaba ay dilay ka dhigo indhuhu dilay ka dhigo ay ku doogsanayaan ilaahay dee intuu dhisay ayuu camiro wax walba gudaheeda dhigay intaasaa imaan looga dhigayo haddaad neefka eegtiyo haddaad dhulka eegtiyo haddaad birta eegtiyo haddaad qofka eegto dhinaca eegtaba waa ilwaadsi iyo ildoogsi intaasaa qofka ku filnaa jirtay laakiin markaa sida maanta aad eegtaaba bac tahay iyo daasad iyo laf iyo wax foolxu iyo yani argagax markaa wey inta waxay adduunyo ku tahay marka dhinacaad eegtaaba ilaa waa kaydkaagii iyo noloshaada ku xidhane aad arkayso mashaakilkaagii wixii ka jawaabaya inay dhulka yaalleen idil halabadeedii udugiyo cudoonkii quruxdiiyo ilwaadkay ugubnima ku dheerayd onkudkiiyo hilaacii afagaaladeedii ashqaraaradeedii dadka baray aftahamada ulajeedadeedii lagu sugay abbaaraha nafta lagu abaabulo asalkiiyo hufnaantii iidaanka noqon jiray hadba oonta lagu liqo dadka kumay fillaan jirin waxaa la cunaaye waxa indhuhu eegayaan ee quruxda ee bilicda leh ayaa iidaan u noqon jiray nolosha ishinbuuxsankeedii iidaanka dhali jiray qoyada afuuftiyo ku xusuuso aynbaad xaggay qabatay wixii jiri jiray
dhulkii camirraa ee ugaadha iyo dugaaga iyo shibiraha iyo xoolaha iyo dhirta iyo qaraabka iyo intan iyo intan iyo intan xagay maanta qabatay yaa leefay dadkiibaa dee bahal noqdayoo dabeetana jib bay martay ergadeeda dunidii uhubay ka qaato arxangooyaheedii ka baxsaday axsaantaa ka dhex galay ilaalkii ka baxsaday inkaartoo ibalaalankeediyo aweydeeda gurantaa isha deeqi waayo hadba soowar ururkiiyo abshirteeda fagantiyo aayaheeda jiitiyo idibkiiyo rigtoontiyo afkan sii balwanayey hadba ilan durkinaye ilka sii qorqoraya nafta aaminkeedii aan fariir ku dhaliye aga nin yaabow adinkaa degdegaya haddaanaadan soo noqon agada maantaas aga kale ku doondoon maanta waxaa weya dhulkii iyo noloshii iyo wixii ahayd duldhigay oo soo yaraanaya hadday dhirkii tahay hadday xoolihii tahay hadday shibirihii tahay hadday qaraabkii tahay hadday kan tahay soo yaraanaya iyo qofkiioo danaciisa iyo hungurigiisu sii durkayo oo sii ballaanayo oo ilka sii afaysanayo wixii uu ku cuni lahaana aana jirin marka waa fakero camarkeen afwaaku waxaa leeyahay qoladan raxaweyta afwaaku mayla ku aame ayaa maanta jirta afwaakane bal maxaa lagu cunaa adduunka iyo wixii yeelayna waa soo yaraanayaan oo waa soo ururayaan qofkiina baahidiisii muraadadiisii iyo bulwooyinkiisii iyo ibtirooyinkiisii waa sii kordhayaan qol adigu labadan adigu isukeen aafadaada mooye dhulku iilma yeesho haddaad tahay bani aadamkii iyo jinkii aafadaada mooye dhulku iilma yeesho waxay eersanaysaa dadka alamsigiisiiyo insi iyo jinweeyo laba aaburkooda asadihinta keeno garashada ablowdiyo gudin jecel abaarta marba aad bannayso erigo-an ka yeesho ufadiyo dabayshiyo omaskiyo basaastiyo waxa umal hadhsanayaa waxa uu mishidayaa waxa oon ka hurayaa waxa oo ka baxayaa waxa olol ka kacayaa waxa uu iska hirayaa waxa baas ka urayaa waxa eel ku da-ayaa ruqa udubadeediyo arabkeeda buuxaa ololaha birtaadiyo hubka agabarkiisiyo aragtida hungurigiiyo ambadkaaga weyi dabashada atoorkiyo qalashada ugeybkiyo umuraaca maqashiyo waxaa dheri olkamayaa waa abaydinkeedii lagu cunay amaahdo naca aynabkaagiyo argagixisadaada urugada ku dhaliyo waxaa damal abguure la engegay haraadkee berkadu asqeeyeen waxaa lebi agoone ehelkiiyo bahdiisii ologii ku xeeraa laga guray unuunkee cidlo keli ku awdalan jabka elilidkeediyo axda geedka dhacayaa isir nugul dabqaayo boqol eefidaadiyo aabigaaga waxa lumay inug baa xusuusto hadba waxaad abbaartaa barta lagugu eediyo godka oodarowanku carre idag haliilow ayax baad ku noqoto ilashada hamuutiyo ardi baad ku gadato ahminkiisa nuurkaa ababkiisa naarta oo qolaad ku shubato araweeladaada waa calooshee araweeladaada ku adoonsanayso waxaa tahay afmadhandiid abxadiisa gaalkaa weligii la iido dhulka arah ku joogo hadba ubaxa laaciyo aslantiisa diirto urtadiisa dabadeed waa saxaradii intuu saa u dirto urtadiisa dabadeed ku abqaalo ciiddii iskagaynta mooye abka kama dhalato waxay eel dul yaallaa waa areebadaadii waa baalidnimadaadii mar awoowadiisow waa abaalgudkaagii rabbi kugu aqoon jiray waa adankii aabaheen iyo jannada la geeyey dabeetana intay idriis ka daaqeen aan ku sii daayeen ilaahay ka dhigo jannadii waxaa tahay arkaaqaad waa xaaladda maanta jirta waxalaale qofkaasi wuxuu dib uga noqonaya wuxuu iska dhowray wuxuu iska ilaalinaya ma jirto wax lagu arko uu qaadaya uu iibgeynaya hadduu dhagax helo hadduu ciid helo hadduu dhuxul helo hadduu shibir helo hadduu ugaad helo hadduu bahal helo hadduu kitaabkii helo wax baa iibgeynaya waxaa tahay arkaaqaad ibtilooyin badanoo marba saar eryanayo hadba aafa dhabatiyo ololayso kiciso adigoo iska jiifay ku kicinaysa ka kac meesha ba halkii soo dhacayay ka kac meesha hadba aafa dhabatiyo ololaysa kiciso mahad lagu idlaystiyo marba deeq afrugayo axankiisa cunaye ha ku eeran bixisada marba lagu agdhigaye ajashaadu sulan tahay dadku waa ab culus yahay
أهل ما هوالكي لغو ردا علابتي ها أدومي قرشدا وحتى أواسكي هنشدا أدونكي إفكا لوغو هيشي هلبقين أقوده لغو فرو الباب بدأ حجد ودو أدك لحي أحد باكو حلاويه مغانتاد كأوديتهاي marti adigu ha u noqon adduunkaas oo dhan oo buuxo ambara dareereediku sayid ka noqda markaas ay inagu maanta hoos fadhinaayo saacada hoos dhiganaynayo marba geed daawooyinaayo balniga ku yaalin iyo in meel bahal ay tiir la goosto la soo iibiya uu leeyahay ayuu xuleeyahay waxaynu ka eedeyn hadda waxayna sayidkii adduunka iyo xilkii iyo meelbinta iyaalideeda iyo dhowrideeda iyo gacan ku haynteeda iyo aakhiro iyadoo la sidoo selaba oo nabad qabta in ilaahay leeyahay ilaahay naga gudoon talaabo abaray taaway inuu caloosheena ku jirta waa sida diidiyada sida u socono aynu caloosha ku sidno aynu aakhirada hortageen waxaana la laga doonay inuu gacmaha ku sidna oo ay fayowdahay oo ay bad qabto ilaahay ku ceelino laga baahido amaanay hayde inuu gacmaha ku sidnay salamta ay fayowdahay inuu celino laakiin waxaan tagaynaa aakhiro inuu caloosha ku sidna oo caloosheena buurti jabal qaaf ay ka weytahay alku laga warqaatiyo murti lagu ingoostiyo waa adduun sarbeeba ah waa abuur wacdara badan waa astaanta hirashada waa abaarta xilashada waa ilayska barashada waa aqoonta gudashada waa ammaan ku sugashada waa ilaah ku garashada nafta lagaga eegbaxo ilaa markaad sawirto ee aad aragto iyadoo buuxda mid waxa weeyaan ammaanadii waxba kama maqan wey amaanadii lagu dhiibay markaad aragto wax walba halkeedii sideediiya tii waxaad garanaysaa markaa amaanadii inay weli gacan ku jirto laakiin maanta markaad saa bal meel kasta istaago bal hadda amaanadii lagu dhiibay bal xaggii qabatay isweydiiyey calooshaaday ku maqan tahay asli weeye raaridan waana amarra weyn tahay orgobaynta bahalkiiyo gudmo lagu ugaarsado adyad looma soo rogin idan bay ku joogtaa duluciyo ujeediyo ahab bay ku tahay duni erey bay ku timi qura misna lama astayn karo ereyadu ma koobaan allaheeda mooye aftarshaana maba jiro sirta unugyadeediyo alifkiyo yo-adeeda hadba sii ekaado dadbanaa aloolkiyo abjadkeeda dahanba marba adag gashanayo ibaheeda sudanba marba aasan dhalayo waxa aadmi garan karo ibir maran ka dhigayo indhadaalis weeyaan caawa oo dhan haddaad xidig sidaa u eegto xidig caawa oo dhan ama geed waagaa kaaga baryaya adigoo aan ka bogan daawashadiisa bal iska daa garashada sirtiisa oo daawashadiisa adigaan ka bogan dayax ama xidig ayaa waaga baryaya taxanaa arooriyo baheeda saantaa waxaa quuray hubisyo waxay eegma baratiyo inay ka badan tahay ninku ayni dhaafiyo qof ayaama milicsaday oo magu ka jooga orod laguma jiiree axadkay ku tahay shay ifafaalo mooye kol haddaan odorosada beri alabadeeda iyo runta lama awaalkaasina lagu ogaan karin waxaa qoolka taladiyo fulintiyo awoodaha ta ahaata weligeed cidi oolin karintaas way ka oojishaysaa ardaygeeda waagiyo nin aroorti sugaya gebigaaguba caawa talaadaaba caawa bal waagu haynoo beriyo raganimadaadoo dhan wax kastaba noqo oo waxaad ogaysa bal waxa waa inoola beriyo aynu eegno adigoo halkaas tahay adigoo sidaasa ayaa haddana iswalwaalaysa isqaadqaadaysa waad moodaysaa afarta buug intaas markaad afar buug gaadho aad isleedahay ilaahay ka dhigo maarta uu halku ku sidi waayaya waad la ciirciiraysaa oo haddii ilaahay ka dhigo markaasaad caalamka arbishaysaa oo markaasaad dadka jiirjiiraysaa oo markaasaad haddii ilaahay ka dhigo dee dhul ballaadan weyn oo aad marto iyo haddii ilaahay ka dhigo iyo maaragtaas inuu ka baqaysa dhulku kula go'o hadda waxaad sugaysaa gebigeeduba minidkaas ma garan kartid daqiiqad kabacdi waxaa dhacaya daqiiqad kabacdi garan maysa haddaba xaggay kaaga timaysa waalwaalku tii allaa imanayso dabeetana finish dabeeta habeenkii markaa arrin laga hadlo waxaa bal caawa waa habeenay bal waxa waa la beriyo aynu berintahay u noqoto waxa soo socda garan maysid oo kasii gaashaaman kari maysid dee tusu ku soo martayoo ilaahay ku barayoo
haddii ilaahay ka dhigo oo aad waay aragnimo u haysato mooyaane laakiin garanaysa talada berita waagu ku beryayna taladayda iyo adigu iyo waxa dhici doona berita caawa dhulka lala goyn iyo waxa dhacaya taana talada waxba kuma lihid mar haddii aanad waxa dhacaya ogeyn oo talada ay ku socoto waxba ku lahayn waxaad garan karaysaa inaanad maaragtay inaad ogaato ogeyn inaad intaada ugu yeelato oo aanad iswada siin maaragtay dacdooyinka nolosha taanad shaqada ku lahayn ifafaalo mooye kol haddaan oo dorosyada beri alabadeeda iyo runta lama awaalkaa sida lagu ogaan karayo waxaa qoolka talada iyo fulintiiyo awoodaha ta ahaata weligeed cidi oorin karintaas way ka ootishaysaa ardaygeeda waagiyo nin aroorta sugayo nin aflaxay tiin kama jarin nin ilmaanta qaadiyo axad jiraba waa been afartiisa weerood istasiinta taadiyo anigiiyo anaa huba runtu kuma idlaato ikhtiyaarka gaarkaa idi kuma ahaato qof iskii ismahadshaa maba jira adduunkii asalkeeda garashada ha ka dhigin ogaalka haddii looga awrdayo sadarrada agnaanka lama helo asaaskee waxaa lagu ilaashaa isirbarashadeed iyo wacdoofintaadii aayaheeda weliga hanashada ku eelsaar oogsigeeda faralka ah xaajadeeda ugubka ah lama aragta kowda ah ku arrumi xadkeedii marka loo akhriyi jiray sharci bay leedahay ku maamul oo ku dhaq oo u cusko sharciga loo soo dejiyey inaad ku dhex joogto oo aad ku maamusho ma irmaano weligeed igad maaha yo-ashada lagu iba salaaxee marka ay asooshiyo markay uurka leedahay ilma rogashadeed iyo ku baxnaani iimaan sabaheedu waa iib ha amaahanteeda oogadeeda waxayaal ha ku urursan boobka ogolaansha weydii oogadeeda waxayaal ha amaahanteeda oogadeeda waxayaal ha ku urursan boobka ogolaansha weydii asturkeeda mooyeeyaan ayaanku kaa noqon furashada abguurka ah inka gooso mooye ha ku agagas dheeraan ilaa xididada ha siidine yaa marba ay yaro marba si oo geedka saartaba mid kale oo waa ka muuqtay inta mid la wax tirsaane dad ka gurbo garan weydo dawada dhamaanaysa dabeedna qiyaamaha dhacay la shardiga u yaala waxa maalinta ay ka simanto arag ee wax dusheeda qotoma la waayo buur iyo dhir iyo waxa maalinta dib rubnaa wala rogaya waa taasi waa shardiga ka yaala dawada koodisa marka uu macnaheedu waxa weeye wax xirta gooteedii ashkir weeye qurux badan inanimo carteediiyo ugubkay ku tahay shay araggay ku wacantahay afka laguma kacashee indhahana wax kaga guro doogsiga ilwaadsiga gudaha indhaha iyo qalbigu wuxuu ku doogsado waa baahi kale intani haddii unahin guri noqoto indhuhu waxay ku doogsadaan waayaan meelay eegaan waayaan waxay ku farxaan waayaan waxay ku dirsadaan waayaan waa dhimanaysa wuxuu waa adduunyo lama sugo agtaadee waa la aakhireeyaa way ammaano jeceshahay waanay eesa badan tahay ma ilowdo godobaha ashtakooyinkeeda fara badan ayaantay ka lahayd afeertoo eedaheeda lama galo otinteeda lama xigo aanadeeda kugu maqan nafta laguma aamino abhinteeda badatiyo ergadeeda maragga ah ayaa laguma gees maro dembi oogideeda iyo aarsigeeda lama sugo indho lagu xaqiijiyo runtu aragga maaha aaminkeeda weeyaan dhulku aayad weeyo lama oga xogteediyo arrimaha sirteedu xarumaha aboorkiiyo aqalada dhalayda shimbiruhu ka oriyaan agaraada maahe waa amuumiyeeyaan dhagaxiyo aleeluhu dhaga awdan maaha aamuskay ku nooshahay waxaa dhacaya ku ogtahay eegmaday ku tahay ruux waa amuur ku dagasho leh lagu dayo qof aadmiya isa suganta kayntiyo aydu maaha keliga oo shugaano fiya reer ummadbaad dhex joogtaa amarkeedu culus yahay agahaagu waa duul isha ba'an ka saahi